waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta dahsoon qodobo kooban oo aynu barnaamijkeena ku dulmarayno maanta waxaa ka mid ah hodheelka ay dhismihiisa ku baxday 65 milyan ee doolarka Mareykanka ee shalay laga furay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. madaxweynaha Turkiga oo ku dhawaaqay in dalkiisu dhawaan soo bandhigaya diyaarad dagaal oo iyagu samaysteen oo aan wax loo dhigaa jirin. Israa'iil oo tijaabisay gantaal cusub oo balastika iyo muuqaalo laga helay hubka qarsoodiga ee Ruushka. qodobo kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamij. Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa habeenkii xalay waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisu u dhow yahay inuu bilahan soo socdo dhammaystiro farsamaynta diyaarad dagaal oo casri ah xajmi ahaanna weyn taasoo caalamka tilmaan u noqon doonta. hadalka madaxweynaha ayaa qayb ka ahaa furitaanka mashaariic horumarineed oo uu ka furayey deegaanada koonfur galbeed ee dalka Turkiga, waxaana intaa ku daray in xisbigiisa cadaaladda iyo horumarintu uu muddadii 16 sannadood ahayd ee xukunka hayay uu kobcinta dalkaasi gaarsiiyey 3 jeer laab iyo badh halkii uu taagnaan jiray marka loo eego. Turkiguna xaqiijiyeen xilliga guulo waaweyn oo dhinacyada waxdhoofinta, ganacsiga, maalgashiga iyo dhaqaalaha leh. dalka Turkiga ayaa sanadkii 2002 waxa uu 22% oo kaliya ka haystay oo awood u lahaa soo saarka waxyaabaha uga baahnaa warshadaynta dhanka difaaca, waxaana ay haatan qiyaastaasi maraysaa 65% iyadoo haatan samaysata agabka iyo hubka ciidamada ee caadiga, waxaana ay soo saaraan noocyo badan oo diyaaradaha dagaalka ah oo ay ku jiraan diyaaradaha nooca droonta, gawaarida gaashaaman iyo taangiyada dagaalka, waxaana ay wadaan dhammaystirka diyaaradda uu Erdogan ku sheegay mid tusaale u noqon doonta caalamka oo dhan. dalka Turkigu waxa uu ka mid yahay 6 dowladeed ee kaliya ee caalamka oo dhan kaligood soo saari kara diyaaradaha aan duuliyayaashu wadin ee ku gaashaaman gantaalaha culus iyo agabka elektrooniga ee horumarsan. militariga Turkiga ayaa u badan ciidan dagaalada khibrad u leh, iyagoo muddo dheer dagaal kula jiray jamhadda Kurdiyiinta ee PKK oo weeraro ku dhufo oo ku dhaqaaqa ka fulinayay koonfurta dalka Turkiga iyo weliba waqooyiga dalka Ciraaq. waxaana jirtay in militariga Turkigu 2 sannadood ee u dambeeyay dagaal ka galeen waqooyiga Suuriya, gaar ahaan deegaanada ku dheeraran webiga Furaad oo ay saldhigyo ku lahaayeen maleeshiyaadka YPG ee Kurdiyiinta Suuriya, kuwaas oo ay Ankarana u aqoonsan tahay kooxo argagixiso oo khatar ku haya amniga qaran ee dalkaasi Turkiga. waana deegaanada ay haatan militariga Turkigu isu diyaarinayeen inay mar kale duulaan ku soo ekeeyaan, waana duulaanka goor horeba la filayay laakiin gobolka oo xilli qaboobihii ku jira awgeed iyo doorashooyinka dowladaha hoose ee Turkiga oo soo dhow dartood aan weli loo bilaabin weerarkaasi. fulinta mashaariicda horumarineed kuma koobna xilligan qaaradda Yurub oo kaliya, laakiin caalamka halkaa waxa ah dalal Afrikaana oo horumarkoodu maalinba xigta kor u sii hinqanayo, inkastoo horumarkaasi siyaasad ahaan uu yahay mid isku halayntiisu ay weli weeqmayso. waxaana shalay axadii magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya laga furay mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin ballaarinta lagu sameeyay garoonka diyaaradaha ee Boli iyo hodheel casri ah oo dhismihiisa uu ku baxay miisaaniyad gaaraysa 65 milyan oo doolarka Mareykanka. mashaariicda waxaa furitaankooda ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo gudoomiyaha ururka midnimada Afrika Muuse Faqi Maxamed. hodheelkan cusub oo loogu magac daray Ethiopian Skylight ayaa ka mid noqon doona hodheelada 5 starka ee caalamiga, waana hodheelka ka kooban in ku dhow 400 oo qol oo kuna fadhiya masaafo dhuleed oo gaaraysa 40,000 oo mitir oo isku weera, waxaana gudihiisa ku yaala ilaa 4 hodheelada cuntada oo waaweyn iyo howlo loogu talagalay in lagu qabsado shirweynayaasha iyo xafladaha. waana hodheelka hirgelintiisu sababtay inay abuurmaan ilaa 400 oo fursado shaqooyina, waana hodheelka ku yaala duleedka madaarka caalamiga ee Boli ee magaaladaasi Addis Ababa oo isaga laftiisa shalay laga furay mashruuc ku saabsanaa dib u ballaarintiisa iyadoo kor loo qaaday qaybaha dadka rakaabkii ku nastaan ama ku kala wareegaan. waana madaarka sanad walba ay ka soo degaan ama ka dhoofaan dad socdaala oo lagu qiyaasay ilaa 22 milyan oo qof.
markii ugu horreysay ayaa muuqaalo kooban waxaa laga helay hubka loo haysto inuu qarsoodi u ahaa dalka ruushka, hubka oo la filayo inuu adeegga soo galo sanadka gudihiisa. sawirrada laga soo qaaday gobolka Siberia ayaa muujinaya gaadhi kuwa ciidamada oo jiidaya diyaarad loo haysto inay tahay nooca daroonta ee qarsoodiga ahayd. waana diyaaradda la filayo inay qaadi karto qombolado culeyskoodu dhan yahay 2 tan, sida lagu baahiyey telefishinka Euronews oo soo xiganayay warbaahinta dalka ruushka. waana diyaaradda daroonta ee dagaalada ka ugaarsanaysa, waana diyaaradda ka tirsan jiilka 6aad ee diyaaradahaas. waana diyaaradda tijaabooyinkii u dambeeyey la mariyey xilli daraaceedkii u dambeeyey, taasoo loogu magacdaray Okhotnik Drone. waana diyaaradda daroonta ee cabsida beertay, taasoo nashqadaynteeda iyo farsamadeynteeduba ku yimaadeen amar uu bixiyey madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin, sida ay baahisay jareeridda Daily Star ee dalka Britain oo iyadoo arrinta wax ka qortay. waana diyaaradda xawaaraha dheer ee ku socon karta ee saacadiiba goyn karta masaafo dhan 800 kilomitir. waana diyaaradda duuli karta oo maaxi karta masaafo sare oo gaadhaysa 4,000 oo fud oo jooga sare ee hawada. waana diyaaradda ridi karta tirada gantaalaha ee ay dusheeda ku sidato. taliyayaasha u sarreeya ciidamada dalka ruushka ayaa rajeynaya inay u suura gasho inay howlgalladooda difaaca cirka ay u adeegsadaan diyaaradaha dagaalka ee waaweyn ee aan laga adkaan karin. ogahan iyo macluumaadkan ayaa soo baxaya iyadoo toddobaadkii hore dhammayskiisii ay mid ka mid a diyaaradaha culculus ee xambaari kara madaxyada nukliyeerka oo ruushku leeyahay ay ku dul burburtay qudbiga waqooyi ee dunida. diyaaradda burburtay oo nooceedu ahaa Tau 22M3 oo cimilada oo xumaatay darteed waxba arki weyday ayaa isu soo laalaadisay, deetana qarxaday oo dab xoog lehna ka dhashay. waana burburka diyaaradda dagaal ee dhaliyey dhimashada 3 askari oo dusheeda saaraa, iyadoo shilkaasina ku yimid diyaaradda xilli ay doonaysay inay cagadhigato saldhigga ciidan ee Murmansk oo ay ruushku ku leeyihiin dacalbadeedka waqooyi ee dunida, sida ay baahisay jareeradda Daily Mail ee dalka Britain. wasaaradda difaaca ruushka ayaa iyana waxay sheegtay in diyaaraddaasi aanay xambaarsanayn oo aanay sidin wax hub ah xilligii ay shilkaa la kulantay.